Qisadanu maanta waa qiso aad iyo aad u cajiib badan kana hadlaysa fadliga ay leedahay sadaqada. Qofka ay qisadan ku dhacday waa nin u dhashay wadamada Carabta mid ka mid ah. Ninkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Xuseen. Xuseen wuxuu ahaa nin xoolo haysta oo taajir oo maalqabeen ayuu ahaa. Xuseen waxaa ku dhacay wadne xanuun ayaa ku dhacay. Waxa uu aaday isbitaalada ku yaala wadankiisa mid ka mid ah ayuu aaday. Waxaa loo sheegay in aanan wadanka waxba looga qaban karin uu u baahan yahay isbitaal dibadda ah oo degdeg ah. Qalinkaana lagu fulin karo wadamada dibadda ah wadan ka mid ah ama wadamada Yurub wadan ka mid ah. Waana inuu u aadaa si degdeg ah. Haddii uu degdeg u aadi waayo, waxaa laga yaabaa in uu noloshiisa waayo ama halkaas uu ku dhinto. Xuseen noloshii ayaa ku cakirmatay, waagii ayaa ku baryay. La tashi dheer iyo qoyskiisa iyo familkiisa markii uu la tashtay, waxaa go'aan lagu gaaray inuu baxo wadanka dibadiisana uu aado, dhakhtarkaasna uu tago, qalinkaasna uu soo maro si uu ugu soo caafimaado. Xuseen boorsooyinkiisii safarka iyo alaabtiisii ayuu soo xirtay oo u ambabaxay wadankii dibadda ahaa. Lagu yiri wadankaas waa inaa aadaa, wadankaas ayaana qalinka wax lagaaga qaban karaa. Markii uu isbitaalkii uu tagay, caafimaadkiisii la baaray, check up lagu suubiyey, waxaa loo sheegay inuu haysto muddo 30 maalmood ah. 30kaas maalmood haddii uu kadib dhacana in nafsadiisa halis ay galayso. Sidaas la ajligeed waxaa la yiri waxaa haysataa 2 isbuuc oo qoyskaaga iyo familkaaga aad go'aan ama qalinka go'aankiisa kagala soo tashan karto. Qalinkuna wuxuu uu noqonayaa 100% xitaa ma aha 50% xitaa ma aha. Qalinku wuxuu noqonayaa 80%. waayo 80% marka lagu leeyahay 20% kaliya ayaa lagu guuleysan karaa. 80kaas kale in lagu guuldareysto ayaa laga yaabaa. Maadaama qalinka uu galayna uu yahay qalin aad iyo aad u halis badan, waxay dhakhaatiirtu go'aan ku gaareen in uu Xuseen baxo familkiisa 2 isbuuc waqti la soo qaato, la soo dardaarmo, kadibna uu soo laabto qalinkiina u soo diyaar garoobo. Xuseen wuxuu u soo ambabaxay wadankiisa inuu ku soo laabto si uu u dardaarmo reerkiisii iyo familkiisii iyo qoyskiisii uu la dardaarmo inuu 2daas isbuuc dardaarankiisii iyo deemankii iyo waxaas dhan iska soo dhiibay ayuu u soo baxay. 2 isbuuc iyadoo lagu jiro maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo gurigiisa balakoonkiisa taagan. Gurigiisana wuxuu u dhowaa suuq ayuu u dhowaa. Isagoo balakoonka taagan ayuu wuxuu u fiirsaday haweeney qof waayeel ah oo bakoorad ku tubayso, ku agmeereysanayso miis hilib lagu gado. Ninka hiliblahana mar walba uu burinayo. Haweeneydii ayuu si fiican ugu kuurgalay, mar walba way ku soo laabataa ninka hiliblaha ahna si adag ayuu u buriyaa oo naxariis daraa. Isagoo u burinaya ayuu sheeda kor ka daawanaya. Ninkii Xuseen ahaa waa soo degay. Markii uu soo degay wuxuu u imaaday ninkii hilibka gadayay. Wuxuu yiri haweeneydan maxaa u burinaysaa? Waa qof weyn oo waayeel ah, maad u naxariisatid, naxariis ayay kaa mudan tahay. Waa hooyada oo kaleeto, hooyadana waa loo naxariistaa, maxaa ugu naxariisan laadahay? Markaas ayuu ninkii hiliblaha wuxuu ku yiri haweeneydan aa u jeedid hilib ayay rabtaa, anigana hilib uma hayo, ma garat. Marmarka qaarkood waxaan siin jiray lafaha ayaan siin jiray, lafihiina hadda dad kaleeto ayaa iga gataan oo aan ka iibiyaa, lafana uma hayo, hilibna uma hayo, marka maxaan siiyaa? Saas la ajligeed ayaan isaga burinaya. Ninkii Xuseen ahaa ayaa wuxuu u wacay maamadii waayeelkeed ayuu u wacay. Wuxuu yiri maama kaale. Ninkii dukaanlaha ama hilib gadaya ayuu kala balmay. Wuxuu yiri maamadan wuxuu ku yiri maama isbuucii 1 maalin ayaa u imaanaysaa, bishiina isku noqonayso 4 maalmood. Bishii 4 maalmood ayaa ninkan hiliblaha u imaanaysaa. Maalinkaasna waxaa ka qaadanaysaa 2 kiilo oo hilib. Lacagtiisana aniga ayaa bixinayo. Bil walbana 4 maalmood ayaa ku leedahay maama meeshaan imow. Ninkii hiliblahana wuxuu yiri soo xisaabso, 1 sano soo xisaabso, maxay noqonaysaa aniga ku siinayo. Maamadan waayeeshana waxaa rabaa waxeeda inaa sida Ilaahay kugu ogyahay inaa u siiso. Maamadii farxad ayay meesha la ilmeysay. Waxay tiri aniga waxaa guriga ii joogay tiri 4 gabdhood ayaa guriga ii joogay tiri. Iska daa hilib inay cunaan, lafaha ayaa intaan u soo qaado aan karkariyo ayaa maraqooda siin jiray tiri. Muddo sanad ku dhawaada gurigeyna wax hilib ah lagama karinin. Waxaan suubin jiray ninkan hilibka meesha ku gada ayaan u imaan jiray. Waxaan barbaaran jiray lafaha meesha uu uga taga, lafahaas ayaan meesha ka qaadi jiray. Lafahaas markaan meesha ka qaado guriga ayaan geen jiray, dib ayaan u karkarin jiray, biyo ayaan karin jiray, maraqooda ayaan reerka siin jiray. Farxaddii maamada meeshaas ay ka qaaday ayaa ninkan maba uunan ogeyn maamada uu ka farxiyay. Waa iska baxay gurigiisu isaga laabtay, waa iska murugeysnaa. Waa ka bacdi waxaa u dhamaaday 2 isbuuc oo dardaaranka ahayd ayaa u dhamaaday. 2 isbuuc markay u dhamaadeen wuxuu u laabtay dhakhtarkii dibadda ku yaalay wadamada dibadaha ahaa. Dhakhtarkii markuu aaday oo baaritaan lagu suubiyey, dhakhtarkii ayaa wuxuu yiri niyahow maxaad samaysay, maxaa dhacay waay? Aniga waxaan isku soo diyaariyey qalinkii ayaan rabaa inaan maro. Dhakhtarkii ayaa wuxuu yiri qalin uma baahnide, wadnahaaga waxaa moodaa wadna yar oo hadda lagugu abuuray ama wadna curdun ah ayaa moodaa. Wadnahaagii maxaa ku soo samaysay, maxaa soo isticmaashay, daawo noocee soo cuntay? Ninkii Xuseen ahaa waa yaabay. Wuxuu yiri war dhakhtar maxaa kaa qaldan? Aniga qalinkii ayaa u soo diyaar garoobay, waana soo dardaarmay. 2 isbuuc soo dardaaran ayaa tiri. 2 isbuucna waa soo dardaarmay, wax daawaana ma soo cunin, wax dhakhtar kaleetana uma tagin. Aniga waa is soo qibliyey. Waxaan u imaaday halkan inaa qalinka la igu fuliyo, operationka la igu fuliyo ee operationka igu fuli. Doctorkina wuxuu yiri maxaa operation kuugu fuliyaa? Operationka waxaa lagu fuliyaa qof xanuunsan, wadnaha ka xanuunsanaya. Adiga wadnahaaga waa wadna cusub oo qof dhalinyaraha oo kaleeto waaye. Waxaa samaysa ama sirta isticmaashay inaan noo sheegta ayaan kaa codsanaynaa Mr. Xuseen. Wuu yaabay isagoo yaaban oo fajacsan. Markaasuu Mr.
Mr. Xuseen oo wuxuu yidhi saas miya haa okay iska dhaaf anaa gartay meesha liiga haystay ama daawadan isticmaalay. Xuseen waa soo baxay waddankiisa ayuu dib ugu soo laabtay. Markuu waddankiisa dib ugu soo laabtay kadib wuxuu raadiyey maamadii ayuu helay. Maamadii waxaa guriga u joogay gabdho ayaa guriga u joogay. Gabdhihii ayuu wuxuu u suubiyey guri ayuu u dhisay. Maamadiina lacag ayuu siiyey. Gabdhihii gabadha ugu ronayd ayuu wiilkiisa ku daray. Maamadiina ganacsi ayuu u abuuray si ay nolosheeda ugu tiirsanaanin wax uu qof uu siiyey si ay iyada isugu filnaato. Ayuu ganacsi u suubiyey ganacsigeeda ayay meeshaas ka wadataa. Noloshooda waa caadaas. Qisadana waxaan ka faa'iidaysanaynaa fadliga ay leedahay sadaqadu yaraan inaynan galin. Ninkaas hadda wadnaha laga hayo oo qaliinka isku diyaariyey hiliba oo islaan waayeela oo hilib u baahneed oo u ballan qaaday ama lacag uu ka shubay bishiina uu uga dhigay 4 kiilo hiliba bishii uu siiyey. Ilaahay wadnihii xanuunaya oo operationka lagu fulin lahaa operationka xitaa 20% lagu guuleysan lahaa Ilaahay uga caafi. Allahu akbar. Salliga nabiga commentiga noogu soo qora. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.